waxaan rajaynayaa intaan tababarka leedisiye faahfaahin inaad kulli wixii la idinku tababaray ay ka muuqato shaqadiina ay ka muuqato shaqada wasaaradda ay ka muuqato dakhliga wasaaradda saddex qodob ayaa ugu waaweyn tababarkaad qaadateen oo laga maarmaana isagoo ilaa 7 qodob noqonaya ama ilaa 7 nooc oo kala duwan waxa la idinku tababaray GPS-ka iyo GIS-ka iyo habka billing-ka loo sameeyo communication skills-ka sida ummadda loola xiriiro iyo sida khilaafka loo xalliyo dhammaan waa wax loo baahnaa runtiina tababarku arrin sahlan maaha wasaaradaha ama shaqaalaha dawladdu ama dadkeenuna way sagradaan arrinta waxaynu u naqaanaa qofku jaamacad hadduu ka baxay meeshiina u shaqo tagay inaanu tababar u baahnayn ka shaqada haya 10 sano shaqaynayay wuu u baahan yahay tababar inuga baahi badanina ma jirto ama ka 20 sano shaqaynayay way aqoontu isbedelaysaa maalin wax cusub baa soo baxaya nidaamka hore laga tagaya dunidu waa isbedel baa imanaya isbedelka ay hadaa la jaan qaadin oo aynaan dib u rufiyo garayn waynaan isaabarina shaqadeena ay ka go'an tahay waaxda waxaan ka rajaynaynaa inay shaqadeeda sidaan horeba u sheegay ka muuqato tababarkani waaxdu inay dakhligeeda oo intii loogu tala galay sanadkan inaga doonayso wasaaradda maaliyaddu ay wax ka dhiman yihiin inaynu intaa buuxino labada bilood ee xaray ayaynu doonaynaa insha Allah waan idinku hambalyeeynaa waan idinku garab taaganahay mar labaadna cid kasto ka soo qayb qaadatay tababarkan ayaanu mahad celinaya